nebiga sala allahu calayhi wasalam asigoo nolosha ka sii tegaya saxaabada ayuu sidan u fiirinaya wuxuu leeyahay ha dayeecina salaada asalaah ummaddiisa ayuu u dardaarmaya wuxuu leeyahay salaada ha dayicina ayuu leeyahay maalinta qiyaamana waxa ugu horeeya qofka la xisaabin doona waxay tahay waa salaada hadday salaadu ay wanaagsanaato waxa kale oo dhan way wanaagsanaanaysaa nebiga murugka hadday qabato salaada ay u ordi jireen sababtu maxay tahay sababtoo ah wuxuu la kulmayaa waxay tahay qalbigiisana ay ku raaxaysanaysaa la kulanka boqorka midka abuurtay adduunkan ee cerka ilaahay subxaanahu wa tacaala bilaal ayuu u wacayaa wuxuu leeyahay yaa bilaal arixnaa biha yaa bilaal salaada nagu raaxay bilaalow sababtoo ah ilaah subxaanahu wa tacaala la kulankiisa ayuu jeclaa adduunka oo dhan ciriiri hadday kuugu noqoto adduunka oo dhan mugdi haddaad dareentid dadka oo dhan hadday ku dulmiyaan ku xantaan kuugu soo horjeestaan albaab walba hadday kaa xirmato daynta ay kuugu ziyaado xanuunka ay kuugu ziyaado wallaahi hal albaab ayaa jirto salaad haddaa u istaagtid ilaahi subxaanahu wa tacaala ayaa ah kun fayakuun wax aanan suurtagal ahayn ayuu suurtagal ka dhigayaa waa shay cajiib ah salaada qofka mar walba hadduu xifdiyo ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa xifdinaya sababtoo ah ilaahi subxaanahu wa tacaala inta naxariisata waa midka ugu naxariis badan ilaahay subxaanahu wa tacaala الصلاة midka ugu horeeya waxay tahay waa salaada mar walba qofka salaada uu xifdiyo waa mar walba ilaahi subxaanahu wa tacaala uu u sii dhowaado